بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ميلاد شوفتان بإله سبحانه وتعالى دكان ما يلو عدي دبنبك الله كقاضو عدي دن لا وفي انت بان الله ديقو انت بكت الله بوكسي انت دمت الله ونحرستو والدينتي الله ونحرست انا الله نوغا دبا نحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadli doonaa saddex qodob. qodobka koowaad, shirkii aan sheegay New York oo dowladdu ay aadaysay, wafdigii ballaarnaa, kelmadaan ka oranaya. qodobka labaad, Suudaan iyo Imaaraadka iyo isku hardankay isku hardameen villa Soomaaliya, iyo warar cusub oo aan ka helnay ama xogo cusub oo aan ka helnay iyadana kelmadaan ka oranaya. booska aan ku leenahay Security Council-ka oo isagana hardan ka socdo aada xoog badan, isagana kelmad baan ka oranaya. hadda ka hor waxaan idiin sheegay in madaxweynuhu safar ballaaran, wafdi ballaaran ka haysanaya New York la aadayo, General Assembly-ga kala qayb gala. war xog xaqiiqa annaga noogu imo, waxaanu idiin sheegno iyadoo dhaba u imo. waxaan idiin sheegay 32 qof inay Soomaaliya ka baxayaan, 11 qofna ay dibadaha ka imaan doonaan. 32 qof oo aan sheegnay, qof kastoo aan magacaabay liis uu ku jiro oo 32 ah, ayaa waxaa soo daabacday safaaradda Nairobi. safaaradda Nairobi way ka saartay, laakiin dadkii waa degsadeen, waa taa meel walba maraysa. 5 wasiir oo aan sheegay waa ku jiraan, 2 ra'iisul wasaare ku-xigeen waa ku jiraan, waxaa ku jira ilma Xasan iyo Xasan, waxaa ku jira 3 xildhibaan oo aan idiin sheegay, 3 waa ku jiraan, iyo dad kaloo dheeraada. waxaad aragteen wafdigii aan sheegnay oo sidiisii ah markii uu soo fashilmay, oo dadka qaarkiis leeyihiin safaaradda Soomaaliya Nairobi iyo dowladdu isku ajenda maaha. maxaa yeelay safiirka laftigiisaaba weerar ku socdaayo laga yaabaa hinda culisow in lagu bedelo wax noocaas. anyway, warkii aan sheegnay oo cad oo xaqiiqa oo sidiisiiya waa kaa baraha bulshada maraya. wasiirka waxbarashada iyo wasiirka difaaca iyo wasiirka magaranaysaa cid shaqo u socotaa ma jirto. prime minister ku-xigeenada maxay u socdaan? xildhibaanada maxay u socdaan? dadka kaloo shacabka ahay maxay u socdaan? shaqadee bay u socdaan? ma xildhibaanadeena iyo xildhibaanadaasa shaqa ka dhaxaysa America? ya lacagtii inay korortaa iyadana naloo sheegay. 642,000 baan sheegnay, waxaa laleeyahay 700 ilaa 800 inay gaartaa laga yaaba, oo ay lacag badan ku urursadaan. dadkii liiska dibadaha ka imaanaya 11 kuma jiraan, laakiin 32 sidii aan u sheegnay bay usoo baxeen. laakiin soo kama fiicnayn haddii ay ceeb tahay lana ogaaday inay ka noqdaan. soo kuma fiicnayn inay iska daayaano wafdi yar ay diraan. maalinta afaraad General Assembly-ga yaaba jooga, yuu kala hadlaya inuu tagaa xataa ceeba isagu oo sharaf dil ku ah isaga iyo qarankiisaba. qof baa la isaga diraa kale, ama wasiir ama agaasime yaa loo diraa oo meesha ka hadla oo fariinta gudbiya. laakiin looma baahna wafdi intaa la egin lasoo ma isxambaar baa, madad baa la xambaarayaa oo la rabaa in looga soo tago America, ma tahriibba oo dee ISIS baaba dadkii guraysee. maanta nin culus baa la qabtay Minnesota, Jamaal Cumar, oo ahaa nin Soomaalida advocate u ah oo aada u hadla arrimaha Soomaaliyeedna ka hadla, oo 30 sano dhowr iyo 30 sano ka hor aan ku bartay America. ma ujeeda waxaan ku bartay I think inay ahayd 99 inaan ku bartay, iyo ka hor 99kii bay markaan ku bartay Maraykan. marka waagaas wuu deganaa America, deganaa ka hor buu deganaa. marka nin meesha deganaa yaa oo weliba haystay ma garanaysaa protection baa la qabsado, la xiray. qof haddeer socdo haddeer isdhiibaya, kuwa derbi kaboodka oo dhan waa qoran yihiin in la qabto oo la tarxiilo. anyway,
qadiyadaasi fadeexad bay ahayd saan idinku sheegnay baadna xogta u aragteen waana ku sii wadaan weli qodobka labaad suudaan iyo imaaraadka isku hardiyey madaxtooyada Soomaaliya xooga cusub baanu ka helnay suudaan markay timi saad ogtiin horay Soomaaliya waxay u muujisay taageero waxay tiri waxaan ku taageersanahay nabadgelyadiina iyo amnigiina macnaheedu maxay tahay cid idin ka soo horjeeda oo dawladda burhaan uu xukumo ka soo horjeedo dacmo sariic iyo imaaraada baanu ka soo horjeednaa idinka idin taageersanahay waxay kaloo sheegeen inay taageersan yihiin madax banaanida iyo qarannimada suudaan integritygeeda iyo territorial integritygeeda iyo sovereigntygeeda halkaasna waxaa lagaga soo horjeestay imaaraad waxaan kaloo ogaanay shirka ay la galeen madaxweynaha inay kaga dacwoodeen Soomaaliya suudaan baa waxay ka dacwatay Soomaaliya waxay dhaheen waxaa weerarna la kaga soo qaadaa boosaaso bayska ku yaalo imaaraad ku leeyahay bayskaas hadda meel kale kuma yaalo dad waxaan arkayaa maxay berbera may ka diraan berbera bays uguma yaalo ciidan halka meeloo bays ku yaalo waa boosaaso halka meela oo ciidan joogo ama ay diyaaraduhu ka degaan sawiradooda aan idiin soo saarnay aad ka arkaysaan shaashadda waa boosaaso halka meela oo maalin walba laga dejiyo calooshooda shaqaystayaasha Colombiyaanka ah oo Ethiopia laga dhoofiyo oo transitka waa halkaa daroonada waxay dhaheen halkaas aan kaga soo diraa waxay dhaheen waa duqayn karnaa bayskaas oo dhanna dhulkaan la simi karnaa waxay nagu qaadanaysaa dhowr saacadood laakiin ma rabno Soomaaliya inaan weerarno madax banaanideena ku xadgudubno waxaan rabnaa madaxweyne ninkaan inaan naga qabato waxaa la yaab leh madaxweynuhu waxaa la yiri waaba ku taageeray waana ku raacsan yahay suudaan inay duqayso boosaaso dabarwarkaa dhegeysta iyagoo shirkii fadhiya ayaa imaaraadku xogtii helay kuwa madaxweynaha la fadhiya oo geesaha ka fadhiya in badan oo kamid ah imaaraadka u shaqeeya markiiba xogtii buu helay 3 saac gudahood ma aalanahyaha la soo diray aalanahyaha waa boqortooyadii sare nin kamid ah Sheekh Buud wasiiru dawlaha arrimaha dibadda ayaa la soo diray wax weyn baa loo diraa ninkaasi shir albaabadu u xiran yihiin ayuu madaxweynaha la galay waxaan maqlaynaa dhowr shay oo soo baxay oo ay ka mid tahay in ilaa ay ka baxaan arrinta suudaan wax taageerana aysan siin waxaa ka mid ah codsiga suudaan maadaama Soomaaliya fadhido security councilka bishaana ayba tahay secretariatka ay tahay iyadu oo meesha haddii qolo warqad keensanayso oo dacwo keensanayso la geenaya ay tahay cidda qabanaysa ay Soomaaliya tahay inay co-sponsor u sameeyaan oo ay qabtaan iyagu dacwada isla markaasna ay gudbiyaan oo dhex geeyaan security councilka kadibna laga sii gudbiyo oo dood kadib marka laga wada hadlo kadib la gudbiyo oo la geeyo general assemblyga halkaasna ay cambaar iyo ceeb kala kulmaan imaaraadka iyo inta la shaqaysata qadiyada iyada ah madaxweynuhu wuxuu yiri jawaab baan idin siinayaa go'aan baan idin siinayaa saad ula dhaqmi lahaydeen reer boosaaso iyo Puntland saad isaga dhicin lahaydeen go'aan baan idin siinayaa markii warkaas uu ku yiri baa degdeg la yiri 3 hours gudahood waxaa ku imaanaya oo ay bas ku yaaceen oo sidii bal 3 hours maxaa laga gaari karaa muujeeda kulankoodii waxaa la sheegay in lagu yiri ka bax arrimaha suudaan warqadaasna ma gudbin kartaan labo waxaa loo sheegay fariin iyo dhanbaa laga wado madaxweynaha bin Zayed dhanbaa laga wado oo ah ciddii arrimaha iyaga soo faragashata waa la dagaalamayna xasan sheekh doorasho ku jira imaaraadku dawladda ugu badan lacagta ugu badan ku bixisay way doorashada Soomaaliya inuu la diriro ma rabo ma dib uga noqonayaa suudaan taageeradeedii ma ku sii soconayaa lama garan karo waxaa kaloo aad la yaab u leh oo qodobkayga saddexaada hadalkooda waxaa ka mid ahaa baa weliba hadalkan waxaa la yiri waa la maqlay Abuukar baa la xilka ka qaad Umar Cabdirashiidna ku bedel waxaad rabtidna qaado Umar Cabdirashiidna ugu bedel
oo Cumar Cabdirashiid waxa alla waxa rabtid ku qaado kalsoonida inta leeg maxay ugu qabaan maxaa ka dhexeeya Cumar Cabdirashiid iyo Imaaraad kalsoonida inta leeg inay gataan booskaas Ethiopia iyaduna campaign adag ugu jirta iyadoo isticmaalaysa Faarax Sakiin isticmaalaysa in Ali Balcad lagu bedelo Abuukar Baale booska labada nin oo la soo wado labadaba waxa loo soo wadaa codka halka yaala inuu noqdo force maaha cod loogu shaqeeyo Soomaaliya iyo taariikhdeedii soo jireenka ahayd iyo mustaqbalkeeda quruxda badan loogu shaqeeyo maaha waa force inuu noqdo iyo iib iyo beec oo bilaha haray laga shaqeysto kursiga arintaas Soomaalida oo dhammaan indhaha ku haysaa Abuukar Baale dhowr bilood baa u dhiman dhowrkiisa bilood inuu dhamaysto oo aan lagu faragelin shaqadan uu muddada ka shaqeynayay asxaabta badanna samaystay madaxweynuhuna intii uu hore uu daayay uu ku mahadsan yahay bareesharkaasuna intaa waa socday haddana uusan faraha la gelin isagoo sii socdo baxaya inuusan ceeb iyo cambaar kale caalamka noo sii duldhigin baan kula talinaynaa labada nin oo laba wadan oo ajnabi ay wataan dee Soomaaliya ma matalaan mana wada